بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada walaalaha sharafta leh meel walba dunida ugu nooshihiin. Magacaygu waa Saadiya Ismaan Cali ku soo dhawaaw channelkayga Saadiya City Shop. Maanta waxaan idin wadaa insha Allah face wash oo powder ah oo wajiga clean ka dhigayo madmadow ka saarayo dadka aad large pores kala dulalada wajiga kule clean si fiican siinayo marka insha Allah daawasho wacan. meesha waxaan ku haysanaa rice milk powder waa rice milk powder waa caanaha bariiska waa powder ah waaye inta waxaan ku haynaa oat milk waa boorash waa powder ah intana waxaan ku haysanaa kayo clean waa clay nooc kamid ah clay waaye waa kayo clean la dhaho insha Allah waxa waaye skin clean si fiican ay siisaa marka insha Allah idin isticmaal doona intana waxa waaye soap base powder waa saabuun oo castile ah oo powder ah dehydrate lagu sameeyay la qalajiya powder laga dhigay marka isla markaasna uu xumbeynayaan wajiga maxay ku dhaqatid ma sha Allah clean si fiican ayuu siinaya marka qaadada weyn oo boorashidan ah waa boorashka suutin ayuu leeyahay waxa ku daraysaa kayo clean oo qaado weyn ah sidana fiican isku dhaxgelinay waxaan ku dareynaa soap base oo powder-ka ahay oo qaadada weyn ah face wash powder insha Allah waxa waaye meelo badan adduunka laga isticmaalaa cleanse aad u fiican ayuu leeyahay uu ka fiican yahay kan kale sababtoo ah waa waxa waaye waxyaabo heer badan qofkan uu control kara oo mar walba skinkiisa uu dhaqanayo wax dhib uma geynayo ma sha Allah marka aad ayuu uga fiican yahay waxaan ku darsanaynaa rice milk powder waxaan ku darsan kartaa almond milk powder ayaa ku darsanaysaa ma kaaga baahna inaa bisafti fi waxaas ku dartid wajiga clean si fiican ayuu siinayaa wasaqda duldulaalka wajiga ku harto large pores kala dhaho insha Allah haduu qofka white head qabo ama black head qabo way ka saaraysaa green la isku shiidaa si fiican smooth ayuu noqonayaa qofka wajigiisa qoynaya insha Allah markuu dhaqaa wajigu biyo ku dhaqaa markuu hor qoynaya kadib in yar ayuu soo qaadanayaa si fiican ayuu u massage gareynaa cleanse u siinayaa sidaas uu saabuun ku dhaqaa camal uu ku dhaqaa ku clean gareynayaa hadhowna uu ka biiraacinayaa marka insha Allah waxaa ka soo baxay face wash aad u fiican cleanse fiican siinaa aad u nadiifinayo wasaqda si fiican uga qaadayo aad wuxuu anfacaa dadka large pores kale oo waji skinkooda u maleysino yarada duleelo wasaq uu leeyahay ma sha Allah aad ayuu clean gareynaa wuxuu kale anfacaa dadka mar walba isticmaalo make upka aad ayuu make upka u clean gareynayaa marka qofku ku dhaqo ma sha Allah very smooth ayuu noqday marka skinkaada haduu dulduleelo leeyahay oo waasac ah ama make upka aad u isticmaashid ma sha Allah aad ayuu ku anfacayaa mask ahaan loo marsado marka waa face wash ahaan loo isticmaalaa waa lagu dhaqaa waa lagu clean gareeyaa deep cleansing ayuu leeyahay nadiifin aad u xeel dheer ku siinayaa marka kana insha Allah waxay tusinayaa sidoo noqonayo marka qofka gacmaha biyo ku qoysanayaa wajigana biyo ayuu marinayaa marka hore
cleans ayuu siinayaa. xumbo yaroo meel dheerna uu leeyahay oo nadiif ka dhigayso. rice milk buu ku jiraa oo qurux dabiici ku siinaya. marka saas lagu masaaj gareynayaa meel walbo lagu masaaj gareynayaa si fiican loogu nadiifinayo wasaqda looga nadiifinayaa. marka u dambeysa oo nadiifisid wajiga oo nadiif ka dhigtidna waa biyo raacinaysaa. maasha allah caanihii soobkii xumbo aad u badan oo wajiga dilaysana ma laha. maasha allah nadiifna ku siinayaa. saas ayaa loo isticmaalaya haddii ilaa yiraahdo. saaxiibadii la wadaaga insha allah sii share gareeya videoga. waa face wash oo powder ah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.